محمد عبد الله فرماجي وليش يرير كاي ماشي لجوجا درك القشن ضدك حقوريحنا لنا عيكي مالنا وعلينا وقي مالين وما السعودان ما أقولا أنا قال لجوجنا كل حجرنا كترسن آدي مين مالحون مربنا عنف علاق يدقال يديك سوماليات سك سبب وقضات مربنا وتجينا ما باقنينو ما هكنينو أنا قاعد كهرينو ماشي جوجنا وهال مرينو وتجينا جاليرا على هاي دلنا يرد الصوماليات ويوينكا علماء الدين كا برشاد الرئيس كا ضدكو دن ومقالة مقدسو قبل كبنادر كنور برحدي دلجير كداسونا نوبلنا مالنتا سجاليرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كادنا داوني سنواه كونيل اوفيشال فضلا هداك عصوبتا سبستراب ليك شير كومنت لابداد أصحاب تادا فرق قمبر هالتصاد ونقض الدعوة وهرأي الدعوة برنامج جدينا مها السند برنامج تا قوانها كونيل اوفيشال عاو واحد كو دعوة دونتين قضب بدن وحاميس تنوصنا عاو بريتول وحالو مدرسية هاي إن taalada ama jirta daasoon uu ka dhaca banaanbax nabadeed ay soo qaban qaabeen mucaaradka banaanbaxani ayaa loo soo horjeeday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilkiisa dhamaaday welina wax doorasho ah aanan soo wadin dhammaan musharaxiinta xil doonta ah oo ka mid yihiin madaxdii hore u soo martay ودولة الصومالية حسن الشيخ محمود شريف شيخ أحمد يا حسن علي خيري شريف آدم يا كمد دت قوان قابيي بنان بحث نوادد دانك كلا ور كسو بحي ورفافينتا مدحتويدا في الصومالي إن ودنتا قلقل سياسي لدلين أيضا تأي شعبتنا الاستهرتين تاني أيا وحا آد وحما لما شعبتا كونول دلموين تهوس إما دالدا يوم مدحتويدا مادام أي شادين قلقل سياسي آتهي إن بنانبح لوات دينعنا أوتصور جيدو لو قبت magaalada muqdisho dadka qaar ayaa ka qaxay guriyahooda cabsi ay ka qabaan in istoorimaad uu ku dhaxmaro magaalada muqdisho mucaaradka iyo maxaafidta maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu istugu wacay madaxda maamul goboleedyada balse waxaa diiday madaxweynaha dowladda Puntland iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland tani ayaa imaanaysa xilli wadanka oo ku jiro marxalad kala guur ah cudurka safmareynta ee coronavirus-na uu laanaya shacab Soomaaliyeed madan baa in banaanbaxa beri uu qabsoomo iyo dan u yahay shacabka mucaaradka ama muxaafidka tani ayaa waxay soo aadaysaa xilli maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigiisii muddadiisii 4 sanaad ahayd ee dhamaatay dhammaan musharaxiinta ayaa diidan in waqti uu ku darsado madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa beri ka dhaca daljirta daasoon بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan mudaharaad ay hogaaminayaan midowga musharaxiinta oo lagu doonayo xuquuqda dadka ku dhaqan deegaankan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba taasoo ah inay dalkan sharci iyo nidaam looga taliyo kali talis uusan ka dhicin sidii hadda ka hor taariikhda madow ee dalkeena ku dhacday
oo aan la ogolaanin qof si sharci darraa ku jooga talada dalka madaxweynihii hore ama xilkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweyne xilkiisa dhammaaday sifo dastuuri oo sharcigana dalka kuma joogo sifo la heshiiye oo mid siyaasadeedana kuma joogo wuxuu tijaabinayaa saan hore u sheegnay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho ku dhaqan inuu si sharci darraa ku xukumi karo oo kula joogi karo saas daraadeed cabashooyinkii hore dadka ay qabeen oo ahaa jidxirka nolol cariirinta warway nagala soo qayb galahayaan madasha musharaxiinta ilmahooda banaanbaxa goormay noo imaanahayaan yaa halkaa ku soo celi dhanka zoomka ma dhanka zoomkay banaanbaxa uga qayb qaadanahayaan sugaan u sheegee war waxay yidhaahdeen ilmaheenna dhanka zoomka bay banaanbaxa uga qayb qaadanahayaanoy uga soo qayb galahayaan oo may noo yimaadaan karoonaa jiraba war waxay yidhaahdeen ilmaheenna iinma imaan karaan karoonaa jira bay yidhaahdeen oo annaka dhanka zoomka maa uga qayb galna banaanbaxa karoonahaasoo nugu dhici mahaya miyuuna dhalay sugaan u sheegee dhulatus maaha dhildhilna maaha dhigay dhaqaqay qiroqirona maaha udhufo ka dhaqaqiga wadana maaha dhaxda ka jabi dhildhili maaha dhulkan camiran ninbuu dhabarka kuwa ku dhaacmay inaan yarayno waxyaabaha keena dhinaca kale waxaa dawladdu iyadoo la shaqaynaysa qaar badan oo ka mid ah waa la khalday sanadkii tagay sanadkii tagay sanadkan ixtiraamka iyo guddiga dastuurka maxaan ku rahdaa